bulsho 30 sano jirtay baa maanta lagu dhisayaa xagaag waxa aad u bogaadinaya naftayda iyo walaalaha iyo familygayga iyo bulshada Soomaaliyeedba in aad looga faa'iideysto nafsadooda la maalgashto suu Ustaad Mascuud inoo sheegay waxaa jirto sheeko saameyn igu leh maadaama waqtigu aad u gaabtay laakiin aan jeclaysanaya maantay inaan qayb uga noqdo wax badan oo noloshayda ka bedeshay hadda ka hor waxaa la yiraahday meel baa waxa ku noolaa oday yani tuulaa waxa fariisan jiray meesha ugu horeysay tuulada laga soo galo oday da'alaasi marka mar walba dadka soo mara tuulada su'aal bay weydiiyaan waxay weydiiyaan tuulada ma la geli karaa dad khayraysan ma degayihiin camal oo kale markaas hadda koor waxa soo maray laba nin baa soo maray labadii nin wixii ugu horeeyay weydiiyeen waa su'aashii macruufka ahayd bulshada meel khayray dad khayraysan ma degayihiin oo la degi karayo markaas wuxuu ku yiraahday adigu maxaad aaminsan tahay markaas waxaan aaminsanahay tuuladan inay balaayo degan tahay markaas haddaba iska laabo balaayadii baa deganay markaas sidii la mid ah baa niman soo mareen nimankaas isla su'aashii macruufka ah weydiiyay isla su'aashii ugu jawaabay maxaad adiga aaminsan tahay markaasuu yiraahday waxa aaminsanahay khayr iyo baraka iyo khayr iyo baraka deganay qalbu yiraahday sidaas tuuladii ugu wanaagsan dad wanaagsan ay ku joogeen marka qofka waxyaalaha ugu weyn oo hamigiisa keeni kara waxa waa aaminaad inuu la yimaado geesinimo